الكاذبون على المدى حذاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan xaggan niigu duubayaa sida applicationka ArcGIS loo duubo ama loogu shubo laptopka. Markaas ta ugu horeysa eed qabanaysid waxa weeyaan applicationkan markaad inaad ku duubto rabtid waa in aad internetka aad iska xidhid oo internetka ka xidhnaado maadaama ood kala garanaysid. Ta labaad waa in aad antiviruskii waxaa dhan iska xidho. marka waxaan galaynaa mawduucina ayaan galaynaa insha Allah. license ArcGIS license manager ayaan taabanaa execute ama administrator kadib next baan odhanaynaa. next one close baan odhanaynaa. xaggan iminka finish ayaan odhanaynaa. kadib waxaa noo soo baxaya licensekan ArcGIS license server administrator. marka start license baan odhanaynaa. stop baan odhanaynaa. stop xaggaas markaan dhahno waxaan galaynaa filekan aan 0280 waa filekii cracka. marka licensekan aan tagaynaa paint baan tagaynaa labadan ayaan copy garaynaa. copy baan odhanaynaa kadibna waxaan tagaynaa my laptop baan tagaynaa kadib program ayaan tagaynaa ArcGIS baan tagaynaa licensekan aan tagaynaa paint baan tagaynaa. marka xaggan ayaan ku past odhanaynaa. kadib waa labadii shay past bay noqdeen. marka waxaan usoo laamaynaa xaggan ayaan usoo laamaynaa start odhanaynaa. start rain xaggan rain weyn oo socdaa. reading license baan odhanaynaa. dib buu markaad isku reading garaynayaa. uu is reading gareeyay okay baan leenahay. kadib iminka waxaan galaynaa ArcGIS kii baan tagaynaa. kadib waxaan tagaynaa executive aan odhanaynaa. baan odhanaynaa. next baan odhanaynaa. yes baan odhanaynaa. close baan odhanaynaa. next baan odhanaynaa. accept next complete baan leenahay. custom baan odhanaynaa. complete baan odhanaynaa. baan leenahay next. xaggan click the participation imagery improved program buu ku leeyihiin recommend maya baan leenahay. tigtan ka qaadaynaa. install baan leenahay. xaggan markaas wuxuu qaadanayaa muddo ilaa iyo 20 daqiiqo 20 minute buu qaadanayaa. marka intaa dib baan isku soo laamin doonaa 20 minute. assalaamu calaykum. waa kan iminka way soo laabantay markaas finish bay noqotay. finish baan odhanaynaa. kadib advance baan odhanaynaa. kan waan ka baxaynaa cancel baan odhanaynaa. waxaan imanaynaa halkan aan imanaynaa. kadib ArcGIS license tan ayaan qaadanaynaa. program ayaan tagnaa aad kadib aan wala ArcGIS
pin ayaan tegaynaa kadib halkan aan kusii shideynaynaa kadib waxaan baaranaa license administrator kan baaranaa ArcGIS administrator baan baaranaa okay baan odhanaynaa xaggan waan kusoo laameynaa halkan ay imanaa xaggan no definiya local host maan okay baan odhanaa okay local waa kaas waxaasoo dhan desktop advanced network analysis 3D analysis waxaasoo dhan ayaa imika noogu dhex jira kadib halkan ayaan ku qoranaa ArcMap baan ku qoranaa ArcMap programkii wuu noo soo socdaa in yar baan sugaynaa insha Allah ArcMap 10.4.1 halkaas sidaad u arkaysiinba softwarekii wuu noo soo baxay help tagi aan iska fiirina inuu baalku dhamaystiray waxaad u arkaysaa ArcGIS 10.4 for desktop licensekiisu typical advance weyn okay kadib hal shay ayaan ii sheegay customization baan tegaynaa kadib extension baan tegaynaa ani maadaama uu markii hore igu sii jiray oon dib u waxaynayay marka waxa weeyaan waa kaas uu calaamadiisii balse laakiinse kuwan qofka dib u samaynayo kale tigta way ka saaran tahay marka wuxuu samayn tigta inuu wala saaro tigta wala saaray kadib waa kaas close button ashirkeena maanta saas ku eegay